jaamac xuseen xasan waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda daacish oo aad u qaabilsanayd qaybta qaraxyada. waxaa ii caddaatay in jaamac uu yahay nin dambiile ah. in uu helo jaamac ciqaabtii uu lahay oo ah intuu asaga uu geystay jariimo kaliya. kamid noqoshadiisii iyo afkaartii al-shabaab iyo dagaalankii al-shabaab uu la galay inta ka sii xagjiroobay uu tagay mid daacish oo waliba wuxuu doortay qofka markuu basoolada amba ka qaato waxa laga yaabaa qof iyo laba qof oo is ag taagan iyo qof inuu dilo oo wuxuu doortay inuu barto qaybta ugu qatarsan oo ah inuu asagu gacantiisa ku sameesto walxaa qarxa hal marna uu awoodo xirfadda isaga uu yaqaanay awood inuu 100 qof daqiiqad ama sakana gudahood oo nafta ka qaado. xirfadaas oo waxaana intaas kalifay xagjirnimada iyo afkaarta isaga aaminsan yahay u bareeray si ay lacag ku helaan. waxay soo saareen nidaam cusub oo ah ninka ay dilayaan inay sawiraan sawirka markay diraan oo videoga ayaa lacag loo soo dirayaa. sidaa darteed waa dad ka ganacsanaya dhiigga ummadda Soomaaliyeed ka ganacsanaya dhiigga ummadda. qofka ay dilaan bay lacag ku rabaan ma aha fakar ma aha diin waa ka ganacsi dhiigga dadka waa ku baalooba jaamac iyo saaxiibkiis Umar. waxaan codsanayaa jaamac kaliya maaha dilaaga weyn ee saaxiibkiisa aan halkan videoga ka fiirsanay isaga amiir buu yaa walaa Umar Cabdi Mursal waxaan codsanayaa in la toogto dil toogasha maxkamaddu ku xukunta labadaba. dhageysiga kiiska la xiriira eedda loo heesto jaamac xuseen xasan intaas ayuu ku dhameystiran yahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto.